بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعينه على أمور الدنيا وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxaan marka ugu horeysa mahad leh Allah subhanahu wa ta'ala Allah soo noo ogolaaday inaan neefsano hadalno caafimaadna qabno maanta waxaan doonayaa inaan ka hadlo hay'adan New American Resource Center ama Somali American Resource Center goorta aan waxaan aasaasnay 5 sano ka hor waxaan ugu kalifay inaan aasaasno hay'adan baahi ka jirto mujtamaca Soomaaliyeed baahidaas oo ah caafimaadka maskaxda shakhsiyan anigu waxaan last 25 years ka shaqeynayay magaalada tan waxaan ahaa oo aan ka soo bilaabay case manager case worker ilaa aan noqdo program director oo intaas aan marba korayay oo aan ka shaqeynayay especially mental health caafimaadka maskaxda waxyaabaha New American Resource Center ama Somali American Resource Center ay qabato waxa ugu horeeyo mental health ama caafimaadka maskaxda dhimirka ah waxa kaloon qabanaa waxaan rabnaa inaan noqono core centerka New Americanka ama ummadaha ajnabiga aan ku dhalan wadankan ee ku dhashay dibadaha sida Soomaalida Hindida Nepaleeska ah Congolese-ka iyo anyone oo wadanka micnaha qaxooti ku ah ayaan waxaan rabnaa inaan u noqono resource center meeshii ama centerkii ama core-kii ay ka heli lahaayeen adeegyada macnaheeduna ma aha inaan anigu adeeg walba qaban karo macnaheedu waxay tahay inaan garan karo adeeg walba meesha laga qabto ama lagu qabto isla markaana aan u fududeeyo qofkii ajnabiga ahaa haddii uu doonayo inuu aado dhakhtar immigration oo kale 648 meeshu ku yaalaan u tilmaami karnaa waan u ballamin karnaa waan u hagaajin karnaa tusaale ahaan haddii uu qofku damco inuu maxkamad aado maxkamadaas isla marka ahaantaasna uusan garanayn inuu turjubaan helo ama dhinaca sharciyada uusan waxba ka aqoon wuu nala soo xiriiri karaa waxaan ku xiraynaa legal aid-ka hay'adaha micnaha dadka caawiyo oo ay dhinaca sharciga ah waxaan runtii horta hay'adan ay qaasatan u shaqeysaa ummadda ajnabiga aan ku dhalan wadankan haddana qaasatan ummadda Soomaaliyeed maadaama anagu aan nahay dad Soomaali ah oo muslim ah garan karana dhaqankii Soomaalida ay leedahay markii laga hadlayo caafimaadka maskaxda waxa uu kalifay shakhsiyan haddaan in kaga sheekeeyo aniga barashada mental health-ga iyo ka shaqeynteeda waxaan xasuustaa anoo yar Soomaaliya oo 7 jir ah gurigeena wuxuu ku yaallay Xamar Madiino waxaan noo yimid nin aan ma adeernahay oo maskaxda ka jiran ayaa waxa laga keenay baadiyaha kor dhinacaas iyo baadiyo gurigeena markii la keenay Soomaaliyana waa taqaanaa dhaqanka wiilashana gooni u degaan gabdhahana gooni marka asaga waxa la soo dejiyay guri qol anaga nagu dhiganaa aniga nin kale oo seexan jirnay ninka xanuunsanaa aan ma adeerka ahayn lugtoo laga xiri jiray geed guriga dhex yaalaan lagu xiri jiray raashinka meesha loogu geyn jiray marka maalmaha kamid ahaa aniga hooyaday waxaan weydiiyay oo ku iri hooyo ninkan walaalahan nahay maxaa maalin walba sidii wax ay amal loogu geenay raashinkan oo hadana xarig ugu xiran yahay waxay ugu tiri hooyo liibaan haddii ninkan lugta aan ka furo oo aan banaanka u sii daayo nafsadiisa halis kale sababtoo ah xaafadda ciyaalka joogo oo dhan aniga waa kamid ahaayo qof waalan marka aragno waa tuuriyen jirnay jinoole inta dhana dhex u dhufan jirnay yaan hadalku ugu daalin maalmaha kamid ah ayaa ninkii waxaa lugta ka furay gabar iga weeray magaaladii uu aaday magaalada markuu aadan dhagaxa lagu dilay qisadaas weligay qalbigayga kama go'in because very close aan ku ahaa anaa subax canjeerada u geyn jiray qadada anaa u geyn jiray waana la sheekeysan jiray anoo nin yaraa waxaan dareemi jiray aan dhihi jiray ninkan iyo dadka kale isku mid way maxaa maskiinka meeshaan loogu xirayaa marka nin waxa uu kalifay arrintaas waxay tahay dhacdadaas anoo yar soo martay oo ilaa haddana aan iga go'in isla markaasna aan jeclaystay in dadka Soomaaliyeed aan u fududeeyo hadda ka hor haddii aan ka sheekeeyo micnaha waxyaabaha ay qabatay hay'adan ama micnaha tusaalooyinka ugu muhiimsan waxaa jirta hay'ad aan ka shaqeyn jiray oo la yiraahdo South East Ing waxay ku taallaa High Street downtown-ka maalmaha kamid ah waxaa la keenay islaan hooyo ah oo waayeel ah dhowr dhakhaatiirna waa ay soo martay waxay islaanta leedahay u sheeg dhakhtarka hooyo anigu xalay farda ay ugu tumanayay xalay cirkaas la ii qaaday xalay balaaya ay ugu tumanaysay haddii anigu aan ahaan lahaa nin aan cudurka caafimaadka maskaxda waxba ka aqoon iyo luuqadiisa waxaan u turjubaani lahaa hadalka ay tiri islaantaas sidii ay iyada ii sheegto wax macnaha ma sameeyanayo macnaha haddaan dhakhtarka ku iraahdo doctor the lady is saying that she has been matched last night by horses and she was taken over to the skies nobody understands that qof fahmi kara ma laha haddii aad direct translation samaysid balse anigu maadaama aan wax badan ka shaqeynayay howlahan aqaanay waxaan dareemay in islaanta wax ay ka hadlaysay ay yihiin nightmare ama riyooyinka xunxun
xalay balaaya ay u tumatay xalay balaaya ay tumaysay haddii aan sideeda u fasiro waxaa laga yaabaa islaantii in misdiagnose lagu sameeyo ama daawo qalada ama wax qalada la siiyo ilaahay marka wuxuu igu aadiyey sidii saxa ahayd oo ah in islaantii ay haysatay waxa la yihahda nightmare ama riyooyinka xunxun sheekadan waxaan kusoo dirayaa meesha waxaa jiro hay-ado badan oo isticmaala hay-adaha luqadaha oo kale markii ay noqoto caafimaadka maskaxda ah waxaa loo baahan yahay uu qof ka turjubaanhayo qof garan kara dhaqankii hore iyo dhaqankan isla mar ahaantaana fahmi karo language terminology-ga ay isticmaalaan generationkaas laga hadlayo sababtoo ah anagu Soomaali haddaan nahay 3 generation ayaan u kala qaybsanaa waa pre-civil war generation ama dadkii ka horreeyay dagaalkii sokeeye civil war generation iyo dadkii dagaalka sokeeye oo agaaladaas ahaa iyo post civil war generation iyo dadkii ka dambeeyay oo dhashay waqtigii 30 sano ugu dambeeyay marka ay noqoto caafimaadka maskaxda saddexdaas generation qolo walba si gooni ah ayay macnaha u tiriid garaysaa anigu aabahay waa pre-civil war generation haddii madaxa laga galo lagama yaabo inuu aado isbitaal wuxuu leeyahay igey quraan meel quraan balse aniga hadda ay timaadid oo madaxa laga galo waxaan ahay nin garan kara labada dhinacba masaajidkiina waan aadayaa quraankii isbitaaladii nadkeerkii iyo Twin Valley-na waan aadayaa balse wiilkayga oo post civil war generation ah oo iga yar oo generationka dambe ah lagama yaabo inuu masaajid aado marka ugu horreysa wuxuu ku leeyahay aabo let me call netcare let me talk to a therapist let me see a psychiatrist macnaha saas horta u kala duwanahay approach-kana saas waaye maadaama approach-kii uu saas yahay ayaan waxaan dareemi karaa aniga qofka bini aadamka ah oo Soomaaliga ah oo mental health-ga ama dhibaatada maskaxda la ildaran generationka uu ka mid yahay marka ugu horeyso environment-ga uu ka yimid hadduu yahay nin baadiye ku noolaa countryside-ka hadduu ahaa nin ku noolaa dhul xeebeed hadduu ahaa nin ku noolaa dhul magaalo saddexda bay-adoodna waa ay kala duwan yihiin sababtoo ah dadka xoololeyda waa ka dhaqan duwan yihiin dadka beeraleyda ah dadka beeraleydana waa ka dhaqan duwanaayeen dadka magaalada ku noolaa marka qofku waa inuu fahmaa before uusan cudurkii iyo wuxuusan ka hadlin in shaqsigii ama wixii aaladii meesha ay ka timid si uu u fahmo ama uu turjubaani karo marka ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan Central Ohio iyo dhammaan Mareykanka waxaan macnaha la socodsiinaynaa in guri kasta oo Soomaaliyeed maanta dhib uu ka taagan yahay ama maskaxda ha ahaato ama waxyaabo kale ha ahaato fadlan ha qarsanina dadka wax fahmi karo ama aqoonta u leh la wadaaga isla markaana haddaa qarsataan waa idin qarsanaysaa cudurkan dhimirka maskaxdahana waa cudurrada kale oo jirka ku dhaco kale sida cudurrada calool xanuunka oo kale il xanuunka oo kale dheg xanuunka oo kale haddii asaa u wajahdid waxaa laga yaabaa in wax walba ay fududaanayaan marka mar walbana waxaan rajaynaynaa in ilaahay subxaanahu watacaala uu nala garab galo uu noo fududeeyo annagu bini aadan baan nahay oo dadaalkii waa la imaan karnaa balse waxqabadkii iyo hoosh waxaa haya amuurta alle ku dhacdaa marka mar walbana waa in arrintaas aan qalbiga ku haynaa runtii waxaa jira form marka ugu horreysa dadka noo yimaado aan ka saxiixino oo hibo ah formkaas wuxuu sheegayaa in wax kastoo ay noo sheegaan ay halkan aamin ku yihiin waxa kaliya oo annaga aan sirteeda iyo waxeeda la wadaagi karna waxay tahay qof hay-adda ku shaqada leh oo sida tooska u daaweynayso taasina waxaan samayn karnaa oo kaliya inaan consent letter ama warqad ogolaansho aan ka saxiixinaa qofkii aan la kulannay